مالك موسى عالدون ومدة دور بلاد كحدنا حبسي مقالة هرقيسة هي مدحوينها السومالان كسي داية عفس مدحوينه انتا كبعدنا عبد مالك موسى عالدون هي صحافة الله اللي يسوق محنقي مدحوينها السوماليلان يعيد كستو كدم قطي انتو حدنا عبد مالك موسى عالدون وكهد ليايا يري هنا ugu horeyn u mahadceliyo Allah ilaahay suura galiyay inaan xorriyadeeda helo sidoo kale muxuu ahaayay mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo ii fidiyay cafis aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo ay garab istaagtay meesha ay doonto ha joogto hariya habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa يعني ما سو كوبي كرر رنتي دديوغا يعني منا مغعابي كرا يمكا مناسبات كلا iyo waqti kale insha Allah ayaan faahfaahin ku bixin doona waxaan doonayaa kale halkan inaan ka sheego yani kulli waxa isweydiinaysan oo de kulli warbaahin baatino meelaha isweydiinaysan iyo maxkamadii iyo sida ay ahayd iyo arrimahaas laga yaabaa inaad isweydiisaan yani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodii sida ay u kala duwanaayeen iyo sida isaga hor imanayeen garsoorihii xukunka igu riday iyo wixii la igu soo eedeeyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yiri gudoomiyaha maxkamadda sare markay ay warbaahintu ku wareysatay London hadaladaas ay u kala duwanaayeen ayaa muxuu ahayd ku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaan cadaalad helin waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo حادثة الإفك waxyaabo muxuu ahaa hanfara oo muxuu ahaa yani muxuu ahaa la qaada dhigay oo in badan muxuu ahaa la hadal hayay oo la yiraahdo Cabdi Maalik wuxuu ka soo horjeedaa Soomaaliland Cabdi Maalik qarannimadu muxuu ahaa duulaan ku yahay waxaan doonayaa halkan aan ka cadeeyo Cabdi Maalik kama soo horjeeda Soomaaliland iska daynan ka soo horjeeda Soomaaliland laakiin cadawga Soomaaliland man ka soo horjeeda yani inay wax noqoto ay horumar gaadho ayaan doonaynaa wixii ku duulaana inaan bayaamino aan farta ku fiiqno aan naano waxa weeye kaas ayaa cadow Soomaaliland walaalaynta Soomaalida inay walaalayihiin fariinta jacaylka Ilaahayna in amrayo oo ina leeyahay inamal mu'miniina ukhwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka muxuu ahaayay si khaldan loogu sheego leeyahay Cabdi Maalik oo ka soo horjeeda Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland doonaya inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasto ay khusayso cadaaladda oo dulmigana nacab waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsigan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidhnaayeen oo uu ka dhamaaday oo aan la sii deyn runtii arrinkaas aan doonayaa in muxuu ahaa diiradda la saaro oo muxuu ahaa dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobku ma inoogu dii waayay in laga soo daayo oo laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaataysan baa jira Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa